shacabka ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya waxay dhibana u yihiin tan iyo xornimadii dalka wadooyinka isku xidha gobolka oo aan waxba laga qabanin waxaana ay shacabku dawladda ka codsanayaan in wax laga qabto wadooyinka Cabdi Sheekh Qaasim Jilcaawe waxaan ka codsanayaa dawladda kaantiga wadada way naga halawsan tahay waan ku dhamaanahaynaa dadka inuu dhamaanayaa in wadada noola hagaajiyo yaan ka codsanaynaa habaas weyne ilaa madoogaasho intaas toban bari iyo 20 bari inta ka dhaxlay dadka uu ku jira waa inta yar oo daqiiqada yar madoogaasho iyo habaas weyne inta dhaxdooda waxaan wali dhahaa Qamis Daawid hadda goor bi intaan dhan oo saana iyo jidkiyo xun is qabtay meel hada qaf lugtiisas maraa ma jir magaaladana jaqlana joogay anku magaalada aan joog jirnay kabaradu joognay waxa ka kabaraysan waa gaariga oo gaariga wax ka baraysan gaariga waa barga ma leeyahin wajar anu soo tagnay anu soo kacnay birta way birta dheer waxay noo qasabtay danta ana kabarwada jaqashay wadada yeesh waxaan ilmaha ku kursanayno waa xildhibaanka baarlamaanka heer federaal ee laga soo doorto koonfurta ismaamulka Wajeer Dr. Maxamuud Sheekh Maxamed Omar oo soo indheeyay wadada isku xirta degmada Habaasweyne iyo magaalada Wajeer oo ay gaadiid ku xaniban yihiin ayaa ka hadlay dhibaatada dhinaca wadooyinka ah ee ka jirta gobolka runtii waxaanu soo marnay wadada Habaasweyne anagu ka soo socono wadadii aan soo jeexnay runtii aad bay u qaabdarnayd aad bay u xumayd biyo badan iyo roob badan oo da'ay baabuur badan baa dhiiriga ku jiray baabuur ciidan baan soo marnay baabuur dawlad baan soo marnay baabuur waxaan soo marnay shacabka xamuulka ku wado ambulance xataa waanu soo marnay runtii dhibaatooyinka wadada aad bay yanaha ay u saameysay roobkan uu saameeyay wadada oo aad u xun runtii laamiga oo soo socdo hadda on filayno inuu soo gaaray hadda madoogaashu uu soo gaaray uu soo dhaafi doono taniya Habaasweyne ilaa Wajeer uu gaari doono Mandheera u socon doono yaanu rajaynayna insha Allah ta'ala dhibaatooyinkan in ay naga kaafin doonaan naga qaban doonaan Dr. Omar ayaa rajo ka muujiyay in wax laga qaban doono dayaca dhinaca wadooyinka ah dhibaatooyinkan dawladda waan kala hadalnay in badan in wax laga qabto in lagu caawiyo bulshada wadada in la hagaajiyo taana iyada waa lagu guda jira World Bank iyo bangiyada kalaba African Development Bank iyo bangiyada Carabta dhamaan khayraadkii laga soo qaaday gelinayaan dawladda khayraadkeedina waa la gelinayaa oo lacagaha canshuurta oo la diyaariyay marka howlaha iyaga ayaanu rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan dad badan ayaa ka hawadhaca runtii safarooyinkaas iyaga oo ciladaha wadooyinka arkaya marka sida waxaan dadka ugu baaqayaa inay u sabraan ay shaqooyinka la soo hayo dawladda ay hayso oo la dhisi doono wadooyinka Axmed Cabdullaahi Jaamac gobolka Waqooyi Bari ee Kenya